ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 12 bisha 11 2025 waxaan halkan ku soo gudbinayaa shir jaraa'id ama war-saxaafadeed kooban oo ku saabsan dhacdo shalay ka dhacday xisbiga JSB. runtii xisbiga JSB waxaa la yidhahdaa xisbiga cadaaladda iyo wadajirka. xisbiga cadaaladda iyo wadajirka xeer hoosaadyo ayuu leeyahay, xeer doorasho ayuu leeyahay. dalkuna waxaa la yidhi wuxuu aadayaa doorasho dimuqraadiyad, wuxuu ka soo guuraa la yidhi doorashadii nin jeclaysi ku salaysneed oo dadku ay soo xuli jireen. waxaa ii muuqanaysa marka cadaaladdii xisbiga aan ku dhawaaqnay oon magaca aan ka dhigannay iyo doorashadii aan dadka u sheegaynay ayaa mugdi soo galay sida ii muuqanayso. soomaalidu waxay tidhaahdaa kobatalo kobihiisa ayaa la fiiriyaa. haddii dee cadaaladdii aan sheeganaynay, haddii wixii aan ku dhawaaqaynay oon ololaha iyo oon u gelayna beryahan oo dhan ay ahdo doorasho shacabka oo wax soo dooranayo, qofka murashaxa u ah xisbiga JSB wuxuu isla qaatay guddiga fulinta maalin maalmaha ka mid ah shir ay isugu yimaadeen in qofka murashaxa ah uu ka imaanayo xisbiga dhexdiisa, xisbigana uu kasoo tartamayo, marka xisbiga uu soo sharaxo kadib uu u soo gudbayo bulshada. sidaas ay ku socotay. golihii deegaanka ee heer degmo ayaa lagu wada xataa hadda inay sidaas ay ku yimaadaan. waxaa nasiib darro ah marka shalay ku-xogeenkii xogeeyaha guud in meel kambeyn kale uu ka socday oo dadkii loogu talagalay shalay in ololaha loo fasaxo oo gaadiidkii lasoo diyaariyey oo la yidhaahda kambeynkii waa bilowday ee shaqadaha horaha loo galo, inuu halkaas uga dhawaaqay inuu xisbigu uu u yahay murashax gudoomiyaha hadda gobolka joogo. gudoomiyaha gobolka joogo murashax waa noqon kariyaa, cid kale way noqon kartaa, waa guuleysan karaa, waana laga guuleysan karaa, intaaba la iskuma haysto. laakiin